assalaamu calaykum. ila dhegayso qisadan cajiibka badan oo mudan in lagu cabir qaato. waxaa jiray haweeney faqiir ah, waxa ay ku nooleed tuulo, waxa ay haysatay carruur agoon ah. maalin waliba gurigeeda waxa ay ku samayn jirtay xajiinta lagu alxamo doonyaha, waxayna u iibgeyn jirtay badda, waxayna ku iibin jirtay 1 dirham, waxa ayna ku quudin jirtay ilmaheeda agoonta ahaa. halkaasi dirham ayay ugu soo iibin jirtay waxa ay ku noolaadaan ilmahaas yaryara. maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo soo qaadatay xajiintii oo u soo socota badda, xajiintii doonyaha lagu alxamayey waxaa ka dafay tuke. haweenaydiina waxa ay aad uga carootay tukihii, maxaa yeelay wixii yaraa oo ay ku soo iibin rabtay badda, kadibna halkii dirham meesha ay ka soo hesho ilmeheeda waxa uu soo iibin lahayd ayuu ka dafay. si daranna way ugu carootay tukihii. haweenaydii waxa ay aaday sheekhii ku noolaa tuulada ay deganeed, waxayna u tagtay gurigiisa, waxayna ku tidhi, sheekhow, ilaahay dadka ma dulmiyaa? sheekhii ayaa ugu jawaabay, xaashaa lillaah, ilaahay addoomihiisa ma dulmiyo ee waa uu u gargaaraa mar waliba, ayuu uga jawaabay sheekhii tuulada deganaa. haweenaydii ayaa tidhi, sheekhow, anigu waxaan haystaa carruur agoon ah, maalin walibana gurigayga ayaan ku samayn jiray xajiinta doonyaha lagu alxamo, maalin walibana badda ayaan u iibgeyn jiray, waxaana ku soo iibsan jiray 1 dirham, waxaana iga iibsan jiray doonleyda. halkaasi dirham ayaan ilmahaasi agoonta ku quudin jiray, waxaana ugu soo iibin jiray raashin ku filan maalintaasi. maanta anigoo u sii socda badda si aan u soo iibiyo xajiintii, ayaa waxa ugu yimid tuke, waxa uu naga dafay xajiintii aan ku soo iibin lahaa badda. ilaahayna muxuu sidaasi iigu qadaray? waxaa igu xihan carruur yaryar, guriga ayay joogaan, waa ay nagaajaysan yihiin. ilaahayna muxuu sidaasi iigu qadaray oo tukahaasi iigu qadaray inuu iga dafo xajiintii aan u iibgeyn lahaa badda, kadibna aan siisan lahaa 1 dirham, ilmahaygan aan u soo adeegi lahaa, waxay cunaanna uu keeni lahaa. ilaahay muxuu igu qadaray sidaasi? sheekhii ayaa yidhi, xaashaa lillaah, ilaahay addoomihiisa ma dulmiyo. mar waliba uu ilaahay ku imtixaamo, waxa uu ku soo wadaa wax ka wanaagsan oo ka qiimo badan wixii kaa tegay, ayuu ku yidhi sheekhii tuulada deganaa. haweenaydii ayaa tidhi, sheekhow, guriga waxaa ii jooga ilmo gaajaysan, ma sugi karo wax hadda kadib imaanaya, maxaan sameeyaa? sheekhii ayaa ugu jawaabay haweenaydii, waxa uu ku yidhi, ilaahay mar waliba addoomihiisa waa uu u gargaaraa, ilmahaasina kuma eeganayo inay gaajoodaan. ee ha ka baqin, ilmahaas ilaahay ayaa irsaaqaya, adiguna waxaa kaa maqan khayrkooda waxa ka qiimo badan ayuu ilaahay kugu beddeli doonaa, ee sabarka badi, ayuu yidhi sheekhii tuulada deganaa. iyagoo murmaya ayaa waxaa albaabka ka soo galay 10 nin oo ganacsato ah, waxa ayna salaameen sheekhii, waxayna ku yidhaahdeen, sheekhow, maanta waxaan la kulannay wax aan macquul ahayn oo aan la aamini karin. sheekhii ayaa yidhi ganacsatadii, oo maxaad la kulanteen? ii sheega, ayuu ku yidhi sheekhii. waxa ay ku yidhaahdeen sheekhii, waxaan raacnay dooni, waxaan dhex galnay badda dhexdeeda, inagoo marayna badweynta dhexdeeda ayaa waxaa nagu yimid mawjad aad u weyn, waxayna ku dhufatay doontii, waxaana ku dhacnay jamalo waaweyn, doontiina waa ay dilaacday, waxaa noo soo dhex galay biyo, doontiina waxay ku sigatay in ay quusto. innaguna waxaan isku diyaarinay maalintaasi in ay tahay maalintii noogu dambaysay, dhammaanteena waxaan isku diyaarinay geeri. kadib annaga oo ku dhex yaaban badda ayaa waxaa dusheenna soo maray tuke, tukahaasina waxaa ka soo dhacay xajiintii lagu alxamayey doonta, kadibna doontii ayaan ku alxannay xajiintii, doontiina waa ay noo wanaagsanaatay, baddiina sidii ayaan ugu soo dhex baxnay. waxaan la yaabnay oo maskaxdeenna geli weyday badweyntaani dhexdeeda dukahani ka soo dhacday xajiintii lagu alxamayey doonta. waxaa noo caddaatay inuu ilaahay si cad noo badbaadiyey. badbaadintii uu ilaahayna badbaadiyey darteeda waxaan go'aansannay masaakiinta in aan siinno 1 dirham, waxaana isku raacnay in aan adiga ku keenno 1 dirham si aad u siisid masaakiinta. ganacsatadii waxa ay 1 dirham ku wareejiyeen sheekhii tuulada deganaa, kadibna waa ay ka tageen. sheekhii ayaa u soo jeestay haweenaydii, waxa uuna ku yidhi, waad aragtaa, ilaahay halkaadii dirham waxa uu kuugu beddelay 1 dirham. xajiinta aad guriga ku samayn jirtay oo badda u iibgeyn jirtay waxaad ku iibin jirtay 1 dirham, maantana ilaahay waxa uu kuugu beddelay 1 dirham. ilaahayna mar waliba oo ku imtixaamo waxa uu kuugu beddelaa wax ka sii khayr badan. ilaahayna mar waliba addoomihiisa si xisaab la'aan ah ayuu u arsaaqaa. sheekhiina waxa uu yidhi, inna allaha yarzuqu man yashaa'u bikhayri xisaab. ilaahay qofkii uu doono si xisaab la'aan ah ayuu u irsaaqaa. dulucda qisadaani ku jirta waa, ilaahay ma eegto cidla kuma eegto,
addoon addoomihiisa ka mid ah marna cidlada kuma eegto. Taasi waxaa daliil u ah waxaad eegtaa dhagxaanta waaweyn 20 sano dhulka iska dhex yaala. Dhagaxaasi markaad qaadid hoostiisa waxaa kaaga soo baxaya cayayaan yaryar mise xayawaano yaryar oo noole ah oo naf ku jirta. Waxay cabbaan biyo, waxay quutaan raashin, balse Ilaahay ayaa ku irsaaqa dhagaxaasi hoostiisa. Dhagaxaasi oo 20 sano 30 sano 40 sano meel iska yaala hoostiisa waxaa ku nool dhowr xayawaan oo cayayaan ah. Waxay cabbaan biyo, waxay cunaan raashin. Sidaa ay tahayna Ilaahay ayaa meeshoodii ku irsaaqa. Ma arkaysid iyagoo meesha ka soo baxaya, meesha dhexdeeda ayuu ku irsaaqa. Ilaahay marna ma hilmaamo addoommadiisa amase wixii nafley ah oo Ilaahay uumay. Mar walba Ilaahay ayaa irsaaqa. Si walbay ahaatana Ilaahay waa kan irsaaqa addoomihiisa oo idil. Qof waliba oo maanta dunida ku nool waa uu cabaadaa, caawasho badan waa uu sheegtaa. Sidaa ay tahayna waa uu nool yahay. Kuma xisaabtamayo nolosha uu nool yahay yaa ku nooleeyey. Maanta waxaad cuntay yaa ku siiyey kuma xisaabtamayo. Qof waliba oo maanta dunida ku nool waxaa irsaaqa Allah. Qof xooggiisa wax ku kaysan kara oo ilmihiisa ku nooleyn kara oo ku irsaaqi kara ma jiro. Adigu waxaa tahay sabab kaliya. Maanta haddaad baxdid oo suuqa aadid, aad soo shaqaysid, lacagta aad soo qaadanaysid, qofkaas Ilaahay ayaa kaaga soo qaada. Awoodda iyo caafimaadka aad ku shaqaynaysidna Ilaahay ayaa kugu yaboohay. Waxa lacag ahna kuma fadhiyaan. Adigu waxaa tahay sabab kaliya. Haddaad dhimato dadkii aad quudin jirtay kaama soo daba dhimanayaan. Ilaahay ayaa irsaaqaya. Kan waxa irsaaqa waa Ilaahay. Aadmigu kaliya sababta ayay leeyihiin. Walaalaha ku xiran channelka Cabdixakiin Bro, videogan haddaad wax aad ka faa'iiday, waxaan idinka codsanaynaa channelka inaad noo like garaysaan, aad share garaysaan, subscribe aad dhahdaan. Mahadsanidin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.